horta dawaa inaad fahanto sanaag halku ku yaalo aanay jirin runtii calool xaadhnaantii dee meesha horumarka gobolka ka qaybgeli lahayd iyo dowlad xumo ilaa maalintaa ilaa imikadan taagan oo labadoo dhinaca bariga ka soo galaan ayaa waxay had iyo jeeraale waxay dhinac Somaliland ku jira Puntland ku jira dawad iska ogtahayna meeshu haddii ay siyaasadu aanay midaysnayn dhibaatooyinkeeda leedahay laakiin iyo gobolka waxa la digay because laba lugood baa lagu kala taagan yahay kusoo dhawaada barnaamijkeeni maxaa cusub maanta iyo maxaa cusub waxaan maanta badul istaagaynaa gobolka Sanaag oo bariyahan dambe ay ka jirtay waa dhibaato markaasi soo noqnoqonaysa marka hore kusoo dhawaada maxaa cusub mahadsan markaynu saacadiya markaan ka hadlayno gobolka Sanaag bariyahan dambe shaqadu soo badanaysa xaqiiqdiina marka dambe waxa moodaa inuu gobolka noqonayo meel soodin dagaal noqonayo horta dadku waxaad noo fahansiisaa bal sidee bay wax u jiraan horta dawaa inaad fahanto Sanaag halku ku yaalo waana gobol aad u weyn oo gobolka ugu weyn Somaliland xuduudna wuxuu leeyahay xuduud ballaaran uu leeyahay oo maxay tahay gobolka Sanaag sidiisaba marka loo eego maapkeenii hore saddex degmoonba ka koobma imka waa la badiyay laakiin degmooyinka officialka dunida daylaamka oo qosan tahay waa saddex degmada Ceelfoyn degmada Ceergaabo iyo degmada Baran waa saddexda maapka markaad eegtana wuu muuqdaa waa maapkii hore ee markii hore isticmaali jiray ma ingiriiska ma hay'adda dawladii hore ay isticmaali jireen markaad sidaa u eegto waxay xuduud la leedahay dalka la yiraahdo meesha la yiraahdo Puntland la baxday imika Puntland bay leedahay bay xuduud la leedahay halka horta muran baa ka jiro Puntland dee murankeedii ahayd xuduudaha Somaliland in qaar kamid ah iyadu leedahay kaas waa mid weyn oo horta taabashada ugu weyn halkaas aale bulshada marka bariga bulshadu saddex bay u qabsantahay bulshada galbeedka ee saddexda magaalo mid waa galbeed midna waa dhexda waa Ceergaabo midna waa bari degmada Baran ee bariga iyo in yaroo xagga hoose iyaguna dhubahantu ka soo gali jireen markii hore dhul in wanaagsan bay ka soo gali jireen laakiin 88kii dagaaladii 9kii ayaa wax badan bedelay oo dadku kala qaxayo la kala fogaaday marka magaalo labada reer oo labadoo dhinaca bariga ka soo galaan ayaa waxay had iyo jeeraale waxay dhinac Somaliland ku jira Puntland ku jira dawad iska ogtahayna meeshu haddii ay siyaasadu aanay midaysnayn dhibaatooyinkeeda leedahay anigu fikradeydu waxa weeyaan qoladan Somaliland dhowr iyo 30 sano aynu joognay xoog ma saarin gobolka hadday noqoto horumarkiisa iyo hadday noqoto bulshada meesha joogta ama in la isu soo dhaweeyo ama in hoos loo eego gaar loo eego taana lama saaran marka arrinta Ceergabo ka taagan waa arrin huursanayd ilaa 9kii oo inkastoo la isu soo noqday oo dagaaladii waqtiga laga soo noqday oo hadda heshiisyo qoran iyo qoraal kala sameeyay haddana may qeexnayn ilaa imikada may cadayn sida wax ay u soconayaan magaalada waxa kale ku dhacday waxay aad ugu xidhnayd oo in fact dalkaba iyada maxay tahay bariga hore wax walba laga soo qaadan jiray xilliyadii dagaalkii intii ka horeysay markii berbere ay qasantay mayr baa ahayd dekada ugu weyn meel walba loo soo qaato dekadaana waqtigii in cigaal ayaa la soo xiray waa soo xidheen marka dekadii oo xidhantay bulshadoo aan inkastoo la iska wada joogo la wada joogo aan la kala hadana aanay jirin runtii calool xaadhnaantii dee meesha horumarka gobolka ka qaybgeli lahayd iyo dowlad xumo ilaa maalintaa ilaa imikadan taagan ayaa runtii waxa ugu weyn ee magaalada haysta gobolka haysta bal shaqaaqadii maantii soo dhacda haddaynu dadka bal u sharaxno siday ku bilaabantay shaqaaqada meesha taala waxa weeyaan meeshan waxa wada dega markaynu afkaba ku ballaarin ma idin taariikh weyn ka hadlay laba reero reer harti iyo reer Isaaqa wada dega marka qoladan de Isaaqo waa habar jeclo iyo habar Yunus baa magaalada ku wareeg magaalada Muuse Ismaaciil baa ku wareegsan habar Yunus barina waxa ka soo gala Saacad Yunus iyo waxa jooga qoladan kale iyaguna Muuse Caro runtii iyaguna ku dhex jira marka habar Yunus barina baa la isku yiraahdaa qoladan marka habar jeclo iyagu xagga galbeedka bay magaalada gobolka ka degan oo degmada Ceelfoyn iyo Gar adag iyo intii iyaga Saacad Yunus xaggana soo jiraan qoladan Muuse Ismaaciil kubs iyada ku wareegsan magaalada Ceergaabo oo degta oo leh magaalo ahaan waliba reer gaar ah siile markay tuulada ahayd reer gaar ah siilaha hayeeshe waa la wada reer ku adiga laakiin waa magaalo caasimad oo gobol
weligeedna waxay ahayd magaalo baac mushtari oo dee waxay ahayd magaalooyinkii ugu Soomaali waqti baa jiray ay iyadu dalkaba ka wada sarreysay oo ay maxay tahay cadani markay furayd iyadaa wax waliba dee iyada ahaan jirtay wallahi cadan waa loo shopping baa loo doonin jiray dadku intay doonaan raacba ma waxaan waxay u sheegnaa in canabka laga qaado eergaaba cadan la geyn jiray meel wax walba ka bixi jiray afar nooc oo canabi baa ka bixi jiray marka waxay ahayd magaalo beeralaya xoolaleya macdantu waqtiga ma inaan garanayn dad iska yar qaata way jireen laakiin ma jirin dad macdanka waqtiga ka shaqeeya laakiin magaalo beero iyo xoolo iyo kalluun intuba jiraan waxay magaalo baacmusharo xoog baacmusharo ah waxay magaalo dadka degan yihiin ay aad qani u yihiin marka waxay ahayd magaalo dadka ilbaxa ah ee reer Sanaag kulmisa oo ama bari ha jiro ama galbeed ha jire waxay ahayd xaruntii magaaladaasi waqtiga markaa ma jirin ishaysashadan iyo anaale iyo malihid iyo waxaas ma jirin magaalo baacmushtar bay ahayd cid lana waa la wada garanayay dadka inta joogaana waxay iyagoo iska sharaftooda ku joogeen cid iska qabta ma jirin marka magaalada waxa ku dhacay dhaqaale burbur dagaaladii 90 markii laga soo noqday inaguna hargeysan u soo qaxan dadkii joogay magaalada ee dadkii aqoonta lahaayeen iyo dibadda la qabto waqti dalka waa laga wada qaxo dibadda la tagay intii hadhayna waa tan dii hargeysa soo degtay iyaguna xagga iyo boosaaso iyo bay xooga la saaray marka magaalada waxa ka baxay xoogii markii hore ay lahayd in iyada aqoontii iyo focuska wixii yaa loo dhamaada suuqa ka baxay waxay noqotay marka magaalo laba reer xataa hadii la heshiiyay oo ay dhibaato jirin way huursanayd markasta waxay ku huursanaydna lahaanshaha magaalada yaale dhawaan dagaal baa ka dhacay dadku way deganaan jireen weligeed magaalana waa la wada leeyahay inaan yaabtigii baa wada degan gacal wada joogay wada haayeen haaday maxaa kalifay dagaalka maanta Ceergaabo dagaalka Ceergaabo anigu fikradayda saddex waji buu leeyahay wajiga koowaad waxaad taabtay horta dee waqtan ku sheeg markii hore way huursanaydo hal iska wada joogay oo dadku dee dagaal active iyo ma jirin laakiin iyo gobolka waxa la degay because laba lugood baa lagu kala taagan yahay oo lugta Puntland iyo lugta Somaliland wax weyn bay gobolka u geystay oo mar hadii dadku aan dee itijaah wada lahayn meel u wada socon dhibaatadeeda ay leedahay taas waxa factor oo wax iska soo dee aad ogtahay goor noqdoba inuu imanayo iska soo socdo buu ahaa dagaalka laascaanood oo siyaasadeysna oo dagaalka imika dagaalka qabiilooyin isma hayaan imika wuu siyaasadeysan yahay dagaalka marna waxa la isku laayaa laakiin shaar qabiil baa loo geliyay marna dee wax la isku laayaa khayraadka oo laba reer baa islaayo waxba ceel baa iyo waxa laga sheekeeyaa marna waa dagaal siyaasadeysan oo sheeko kale wata horta dagaalka imika jira waa dagaal siyaasadeysan laba siyood baan u socdaa mid waxa ka mas'uula qoladan maxay tahay in dagaalkaas uu ka mid yahay kaab lagu soo qaaday Somaliland ka ahaa ascaanood agta ku haya kaasu wal saameyn buu ku lahaa xoogin buu ku leeyahay reeraha halka jooga SSC-dan Estan inaguna khalad baanu sameeyno dadka reer Sanaag mar qura ma isixin kelmadda SSC-da SD Sanaag wax la yiraahdo reerka hadii ku doodaya wax yar bay ku leeyihiin marka runta la isla yimaado marka marna lama oran dameerash wax badan kuma leeyihiin magaca maxasuusatan la Sanaag inta soo reer baa digtan waana gobolka ballaaran marka magaca Estaasi halka ku jirta waxay leedahay waxay ahayd factor kamid ah laakiin waa sheeganayaan way degaan ma diidanin maya waa degan yihiin la iskuma hayo deegaanka meel la waxad tahay majority meel la waxad ka tahay ama minority markaad adigu ka tahay iyaga reerka labada reerka kala dawarsangeliga kan ba iyaga ka weyn oo kaga tira badan oo degmo weyn oo ballaaran oo buuxin bay iyagu leeyihiin laakiin qoladan degmo kuma leh markaasi laascaanood markuu bilaabay dagaalka laascaanood horta marka u horeysa dee reerkii laascaanood reerka hadday gobol heleen ay degmadoodii iyaguna waanu xoreysan dee waxay u baahan yihiin inay helaan meel ka ballaaran intii hore oo iyagu waxay doonayeen riyadooda ka mid ahayd inay Soomaaliya States of Somalia ka mid noqdaan dee sayska sharcigan wuxuu yahay haddii doonayso in Soomaaliya state ka waxaan federaalka ay sameysteen aad ka mid ahaato waa inaad laba gobol iyo bar haysataa marka iyagu Sool ayaa isa siiyay Sanaagna iyaga isa siiyay mid kale aynu la bixina saddex ma SSC saxay ka kooban tahay ayn iyo dee Sool dee ayna bi Sool bay ka mid tahay
Soomaad garan meel cayn la yiraahdo oo gobollo degmay ma jirto waay laakiin sool baa markaa laba loo qaybsaday sanadna waxay qorshahooda markaa inay qaataan oo kale marka dawladda Soomaaliya anigu Xasan wuxuu ku yiri aan idin siiye ama markasta waa lagu lahaa soo dhama shuruudaha soo bixisho ma bixin karaan shuruudaha waxay noqotay marka inay sanad helaan horta saasi sanad focuska u soo saareen in sanad la helo oo qalankooda iyana ka taagan si ay sanadna u lahaadaan soolna u lahaadaan ayntoodii garamay halka keeda iyana buu hodla aynu noqonaysa marka saas u qorsho ah tiin ma shaqeynayso ma shaqeynayso oo problemkoodu waxa weeyaan deegaanka ay ku soo galaan hadda deegaan kuma soo galaan deegaankay ku soo gali jireen berigii hore ay ku yar lahaayeen intii dhubka ka soo gali jireen waqtigiiba isbedel baa ku dhacay marka hadda tuuladooda ugu sokaysa waa ilaa 40 kilomitir bay u jirtaa deetana ma ala magaalo aan ceergaabana waxay kaga duwan tahay magaalooyinka Somaliland anigu iyo anigu magaalooyinka Soomaaliya gabigeedaba Soomaaliya reer walba xalku ka soo galo ka soo diga أنا كده هذا هرجسة أكتو. غير ولا ميجي حقه يهود مقالة كجسرة. تاس وحويان وحويان وحسامي دجال كاسي كسر. لا سعنودها. فكر كلا بعد حيوان ودقالة. مقالة ده مرة دي عن دقالة ومقالة يمكن مرة دقالة وش دسينهين. لسمه قادتي. صح. نقول حكم مشغولة يا سدو يسوقنا ماشي سائل عقد وسميسان لهايو بعمش الرسمين لهاي هركن الرسمين لها. دقالة حمد وحكي أنت هذه يشتغل عليه. دي واحد يري ميلكو شراء السود يجي. qofkaas muxuu haystaa kaas muxuu helay halkan meel baa ku yeel marka dekada xidhnayd runtii iyo dhaqaalihii magaalada oo dumay magaalo markii horena aad u dhisan ay ahayd runtii waxay keentay marka iyadoo waa dhaqaale xumadii baa la isku leeynaya oo dhaqaale xumad dadku way istustaa dadku dhaqaale xumaduna way istustaa marka resource-kii meesha yaalay ayaa loo arkay in reer gaari qaadanaya ama ay reer gaari boobayaan ama kuwa kale ay ka maqan yihiin in runtii inay beentay waa sheeko kale laakiin waxa jira aragti ah wixii reer qura qaadanaya anagu waxba kuma lihin waa sax oo taasna way jirtaa factorka saddexaad waxa weeye dadka magaaladii dadkeedii oo qoonta lahaa ee waxaystay ayaa ka soo guuray dadkii isaaqay halka deganaa xoogiisa dabriciye hargeysa buu soo wada galay because iskuuladii wanaagsan ma jiraan dhakhtar caafimaad oo aan ma jiro dhismihii qaabkii ma jiro maadaama dhismaha qaabka magaaladu hoos u dhacsan yahay dadku caafimaadkii hargeysa soo doonanayaan maxay tahay iskuuladii hargeysa loo soo doonanaya baa masharkii hargeysa la leeyimi dadku dhursi dabada joogay waxay istay iyo dadkeena halkan joogayba hargeysa dhistaan burcay dhistaan xagaasna xagga wax yar baa la dhisaya way dhisay magaalada waa la fidiyo waa runtii wax uga baysan tahay qoladii kale xag kale dhisay qoladii kale boosaaso iyo baranta dhulkoodii kale dhisteen way taasna marka center makii magaaladu ay ahayd dhaqaalo ku soo ururayay ayaa qoyaanku jooga meesha ka dhaxaada halkan ka walaaqa wax shicibka lama gaadhin shicibka Soomaaliland dawladeedu marna bay gaadhin shicibkuna waa meesha ay ka soo fufayso oo imanayso marka dadkii meesha joogay mar hadaan resource gaarsiinay oo aan hanti badan gaarsiin lahaanshahooda inay meesha qirsanaadaan inay gobolkan ka tirsan yihiin dawuu hooseeya marka marna laba xoog baa ku herdamaya oo Soomaaliya iyana ku saddex baa ku herdamaya marka labaadna qoladan gacanta ku haysay dhulka joogta waa geysaa iskuulada iyaga maamula caafimaadka iyaga maamula laakiin markaad waxa soo dhan eegto dadka shicibka ah lama gaadhin way marka la shacabka lama gaadhin haddii iskuulkii loo sameeyay oo dhakhtarkii loo sameeyay shacabku maxay doonayaan maya laakiin eeg mashaariic waxa jirta iminka galbeedka haddaad eegto dee mashaariic baa meel walba taalo biyaha caafimaadka ta dawladdu ma ceergaabaanay gaadhin oo markaasi ama caafimaad ha noqoto ama iskuul ha noqoto mise meel kale saad ku ximilaa tamay horta gobolada barigu marka horeba lama gaadho marka runta loo hadlo dhaqaalaha ka soo baxana berbera cashuurta burco xoolaheedii wax lagu cashuuraa berbera oo suuqa ugu weyn geeska Afrika ahaan jiray berbera cashuurta beeyadii ceergaba ka soo baxaysay berbera cashuurta xataa maalmo dhaweeyay imkin dekada la furay alabta ka timaada oo la soo cashuuro xagga laga soo cashuuro beer baa dooni jirtay in mar labaad dib cashuurto marka alabta ka soo degta mayd xitaa beer baa damacday in mar labaad dib cashuurto marka somehow ahaanshaha Somaliland ee ay gobolkaasi Somaliland yahay dadka ku nool hadday yihiin reeraha isaaqay ku nool iyo hadday yihiin kuwa hartiga ku nool
waxay ku qabaan gobolka dalkan waa yar yahay okay dadkuna mar haddii aanu meesha wax badan ku qabin oo aanad arkayn iska lahaanshahayaga wuxuu noqday markaa emotional qoladaasuna waxay noqotay uun harti baanu nahay oo harti haddaanu nahay anagu Puntland baanu nahay qoladan waxay tiri anagu isaaq waanu haddaanu isaaq nahay Somaliland baanu nahay waay laakiin wixii ahaa